كذا شبهت كذا إذا بلد كذا سودان waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay 26 June 1960 oo noqday gaari taagay waa rabitaanka shacbiga waa codka ugu weyn ee xaqiijin kara waa codkii maalintii hore shacbiga Soomaaliland yiri shuruud aan lagu geeyay xamar la yaa garaad waa dadkii lahaa midnimada la doonayaa waxba gurgurtada su'aalaha la soo doonayaa maanta waxay leeyihiin maya waanu eednay ku noqon mayno intii ay 30 sanadood kala maqnayn intii ay jirtay Soomaaliland waxa taa ka daran wixii hore dhacay 30 sano dawladii Soomaaliya isaga dambeeyay ee taa maanta ku jirta dagaalkay hore ka adag oo caalamka oo dhan ah ayay u galeen inaanay Soomaaliland hirgelin inay cunaqabateeyaan inay adduunka oo dhan ka horjoogsadaan oo aad muddo Soomaaliland inay ahayd qolo ay adoonsadaan oo qool gaar ah ku xidheen ay adduunka la mareen oo aanay Soomaaliland yeelayn markaan soo gaabiyo dawladdan ugu dambaysa markaan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdullaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladdan soo martay inkastoo maanta raali gelin uu bixiyay oo moodaysa inuu wado wanaagsan u bayray waxba ka daba keenay waxay ahayd dawladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Soomaaliland saad dhinac walba uga dagaalanto dhowr qodob baan ka soo qaaday waxa kamid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay Soomaaliland in caalamka ay cid baxay la yeelato ku wax siya dhaaf inaanay cid bal la baayimsaray karin inaanay cid wax siin karin waxa wada ogsoontay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ahaa waxa kamid ah horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Soomaaliland ee dawladdu ka siirayay special arrangement Somaliland ee ra'iisul wasaaraha jooga intuu qoray yiri lama siin karo amaaka dawladda bal hadda dhugo ma la wixii soo dhacay iyo halku wax marinayo waxa kamid ah horjoogsiga heshiiska ay wada galeen Xasan Sheekh oo isaga ka horeeyay iyo Silaayo ee ahaa hawada iyo lacagta hawada ee aan wada lahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoon walba inta qaadanaysa sida loo maamulayo oo ay ku doodeen ikaw anagana la ictiraafsan yahay cid kale lama hadli karo oo ilaa maanta xalibay waxa kamid ah in wax alliyo wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dawladdii Soomaaliyeed ee naga dhaxaysay inay ku go'aansadeen dhammaantood in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo Soomaaliland taa way diiday cad qureed ma siisatay xorriyadeeda waxa kamid ah inay dagaal la gasho oo xidhiidhka u geyso dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmayso ama maamusta Soomaaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxay noogu filan inay gini cilaaqaadka u jirtay markay magaca Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland karaama iyo maamus u muujisay waxaan ku soo koobayaa waxa soo dhacay 60 sanadood dul xaadiska ah oo kun buug beesh laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda lahayd ee aan ahayn laab la kaciyo caadifad maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaar karnaa laba qodob oo kaliya balka mid saxada ay keeno Soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Soomaaliland iyo xaq ay u leeyihiin
inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaacnimada u galeen ee shacabka Soomaaliland gaaray 18 May 1991 بشارة بالخير لها تدوين وشركة داوين الطبيعية اللي يرضو أصلي ملس مفرور عيا فننكي وجهها فتتكون نقضو فولكا جيبا تتكو فير صدو أدو فرص صبي لما نكو فاهمين هرتك قبل فروي يا سلام هذا بينتان حرية فندال كلا دعين قادي شركة أصلي ملس شركتكو عام بحدي داوين كالطبيعية إما كراكوها هنا نلاحي لبضل oo midoobay iyaga oon isqasbin oo frontiera maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka ee ahadigi Soomaaliland gaadhay burco distoorkeenu ku dhisan yahay qof kasta dalka hogaamiyana uu ku qasbay oo kala xaleexan karin waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland oo Hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal hayntaaba xun madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri raalgelin baan bixiyay laakiin wuxuu ku diray markuu yiri waan imanayaa Hargeysa oo sideebuu ku imanayaa la isweydiinaya sideebuu ku imanayaa xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiye galeen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaaranaya soo maaha waan imanaya macnu soo wada soo inta maaha oo taameen aqbalayna maya maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagal ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabad qaad raali gelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo aqlida ay soo socoto laakiin ku iibsan mayno eref laga yiri waan ku soo siyaaranaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad inaan u baahnayn oo birawa markaan soo koobo hadal haynta leeyahay wuxuu imanayaa Soomaaliya imanayaa buuri madaxweynaha Muqdisho anu wax kale oo garagaran maaye aan ku cabiree gabayga Faarax Nuure kala gooyin baa arinta ka jawaabaya Faarax wuxuu yiri qosol beera foolal qayaxan qiilan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hoos yaalo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigane maaniga midii lay qarshaa laygu qali doono qoontiiba laba baananine qarayara nabadu waryaara kala quusanaya qomamalaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إنها محبية كالقعن ما شيخ حدي مقابي ورد الصومال مدحوينه aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay ka jasaaysi ama asasi nabadgelyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo jeediyay khudbad dastuuriya oo markaas